wuxuu dumin doonaa kacbada, wuxuuna u kala dhigdhigi doonaa dhagax dhagax, wuxuuna soo saari doonaa keydka kacbada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan doonayaa meesha inaan kula wadaago qiso aad iyo aad u cajiib ah. waxaynu ka dharagsannahay ama la soconaa beryahan dambe in biyaha Soomaaliya ama badda Soomaaliya qayb ka mid ah ay doonayaan xabashida inay qaataan. waxaan doonayaa markaa inaan iftiimiyo waxa maanta socdo iyo aakhiru zamaanka waxa ka dhaxayn karo. waxaan meeshan doonayaa inaan kugula wadaago qisada nin luga dhuudhuuban oo madow oo qaab daran oo haddii uu kaa soo horbaxaada jeclaysanayn. ninkani waxaa lagu magacaabaa Diswayqatayn, waana nin xabashi ah, wuxuuna soo bixi doonaa aakhiru zamaanka sida nebiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay. wuxuu dumin doonaa kacbada, wuxuuna u kala dhigdhigi doonaa dhagax dhagax, wuxuuna soo saari doonaa keydka kacbada. ninkani lagu magacaabo Diswayqatayn waa shakhsi lagu sheegay axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna soo bixi doonaa aakhiru zamaanka. waxaa la sheegaa inuu imaan doono dhimashada nebi ciise calayhi salaam, xilligaas oo marka qur-aanka la rafcin doono oo dunida laga waayi doono qof qur-aan yaqaana ama qof qur-aan akhrin kara. haddaba waa kuma ninkani lagu magacaabo Diswayqatayn? sidee buuna kacbada ku dumin doonaa? goormuuse soo bixi doonaa? sidee buuna ahaan doonaa xaalka muslimiinta maalintaasi? maxaase xigi doona markii uu kacbada dumiye kadib؟ diswayqatayn الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان. duminta kacbadu waxay ka mid tahay calaamadaha waaweyn ee tusayay in saacadda qiyaamaha ay soo dhowaatay. markii ninkan uu duminayay kacbada waxaa kasoo qaybgeli doona kumanaan dad ah, laakiin nasiib daro dadkaasi ma aha kuwa u qiiroonaya ama ka xumaanaya in kacbada la dumiyo, bale waxay ku faraxsan yihiin in kacbada la dumiyo. waxayna ku takbiirsanayaan magaca ninkani beddelka ay ku takbiirsan lahayn magaca ilaahi subxaanahu wa tacaala. ninkani wuxuu dumin doonaa kacbada, wuxuuna u kala dhigdhigi doonaa dhagax dhagax, wuxuuna dibadda u soo saari doonaa keydka kacbada. intaa wixii ka dambeeyo kacbada ma noqon doonto meel dib dambe u camiranto, mana noqon doonto meel loo xajiyo maalintaasi wax ka dambeeyo. gacantiisa ayayna kusoo dhammaan doontaa kacbada ninkani lagu magacaabo Diswayqatayn ee xabashiga ah. waana isku daygii saddexaad ee guulaysta ee la doonayay in kacbada lagu burburiyo. kacbada waxaa dhisay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam 4,000 oo sano ka hor, waana meesha ugu xurmada badan uguna muqadasan caalamkan aan ku noolnahay. laakiin nasiib daro aakhir zamaanka markii la gaaro, gaalada uu hogaaminaya ninkan lagu magacaabo Diswayqatayn ayaa burburin doona kacbada, weliba ayagoo ku ixtifaalaya, weliba ayagoo khamre ku cabayo xaramka gudihiisa maalintaasi. duminta kacbada waxay ka mid tahay calaamadaha ugu waaweyn ee saacadda qiyaamaha, oo ay weheliyaan calaamado kaloo badan sida soo bixitaanka masiixu dajaal iyo juuj iyo wamaajuuj. marka horeysa waxaa soo bixi doona masiixu dajaal, caalamka ayuuna qabsan doonaa, waxaana raaci doona malaayiin bashar ah oo munaafiqiin iyo gaalo ah. dhulkana wuxuu ka buuxin doonaa fasaad, dulmi iyo kufri. kadib waxaa soo bixi doono mahdiga iyo nebi ciise calayhi salaam, waxayna ka takhallusi doonaan masiixu dajaal. kadib waxaa soo bixi doona juuj iyo wamaajuuj, dhulka ayayna waxay ka buuxin doonaan fasaad iyo dulmi si ka badan sidii masiixu dajaal, ilaa nebi ciise calayhi salaam iyo muslimiinta ay naftooda uga baqaan. markaa kadib ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala halaagayaa juuj iyo wamaajuuj, wuxuuna u soo dirayaa tixiri ka gala qoorta iyo madaxa. markaas ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dirayaa shimbiro ka nadiifiyo dhulka baktigooda. markaas kadib ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu keenayaa roob u udgeeya sidii miskigii oo kale, si dhulka looga nadiifiyo shiirka baktigooda iyo dhiiggooda. intaa waxay ka dambeeya caalamka waxaa xukumi doona nebi ciise calayhi salaam, dadkuna waxay ku noolaan doonaan barwaaqo, amni iyo cadaalad. muddo kadib nebi ciise calayhi salaam wuu dhiman doonaa, dadkuna waxay dib ugu laaban doonaan gaalnimadoodii iyo kufrigoodii si ka badan sidii marka hore ay ahaayeen, ilaa ay iloobaan kelimadda laa ilaaha ila allah, oo xitaa mid ka mid a qoomkaasi
uu yidhaahdo dadkii nagu horreeyey maxay dhihi jireen laa ilaaha markuu yidhaahdo ila allah kuma dari karo. intaa markay dhacdo waxaa soo daahirayo mid ka mid a calaamadaha ugu waaweyn ee saacadda qiyaamaha, waana soo bixitaanka ninkan xabashiga ah ee lagu magacaabo dhuswayqatayn. dhuswayqatayn macnaheedu waxa weeyaan ninkii lugaha yaryaraa ama lugaha dhuudhuubnaa. waxaa la sheegaa ninkani inuu yahay nin laf yar oo luga yaryar ama luga dhuudhuuban oo weliba lugihiisu ay qalqalloocan yihiin, bidaarna leh, wejigana u weyn. axaadiis badan oo nebiga ka soo aroortay ayaa inoo tilmaamayso ninkani inuu imaan doono aakhiru zamaanka oo uu kacbada dumin doono. inkastoo ninkani uu yahay nin laf yar, haddana waa nin aad iyo aad u xoog badan, wuxuuna gacanta ku sitaa faas aad iyo aad u weyn maalinta uu kacbada duminayo. waxaa jira xadiis uu wariyey saciid ibnulmusayib oo uu ka wariyey abu hurayra radia allahu canh in nebigi sal allahu alayh wasalam uu yidhi yukharibu alkacbata dhuswayqatayni min alxabasha. kacbada waxaa kharibi doona oo dumin doona nin lagu magacaabo dhuswayqatayn oo xabashi ah. tani marka waxay tusaysaa khutuurada ay leeyihiin dadka xabashida ah oo dad badan maanta ay soo dhawaysanayaan, yacni cadaawaddii u qabaan islaamka ay aad u xeel dheer tahay. waxaa kaloo jira xadiis wariyey ibnu cabbaas radia allahu canhuma in nebigi sal allahu alayh wasalam uu yidhi kaannii anduru ilayh aswada afxaj yanquduhaa xajaran xajara. nebiga sal alla alay slam wuxuu yidhi waxay ugu muuqatay sida anigoo arkayo ninkan madow oo weliba lugihiisa ay qalqalloocan yihiin, isaga oo kacbada dhagax dhagax u kala ridayo oo u kala tuurayo. waxaa jira iskudayo badan oo lagu doonaya in kacbada lagu dumiyo hadda ka hor. qofkii ugu horreeyey ee damxay inuu kacbada dumiyo wuxuu ahaa nin yemeni ah oo lagu magacaabi jiray ascad ibnu xajar iyo wiilkiisa. ninkaas wuxuu damcay inuu kacbada dumiyo oo uu booskeeda ka soo raro uu yeman u soo wareejiyo si ganacsatada iyo xujiyada ay ugu soo wareegaan waddanka yemen. iskudaygii labaad ee lagu doonayay in kacbada lagu dumiyo waxaa sameeyey boqorka xabashiga ahaa ee lagu magacaabi jiray abraha oo ka talin jiray waddanka yemen. boqorkaasi wuxuu ka dhisay yemen kiniisad weyn oo lagu magacaabo qulays. si marka kiniisadiisa ay usoo caanbaxdo wuxuu go'aansaday inuu kacbada dumiyo, wuxuuna diyaarsaday ciidan aad u tiro badan oo ka kooban maroodiyaal. maroodiyaashu waxay ku jireen booska taangiyada maanta caalamka. abraha ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ka difaacay kacbada sida ilaahi subxaana wa tacaala uu inoogu sheegay suuratulfiil. haddaba iskudayga saddexaad ee ugu dambeeya ee najixi doona waxaa samayn doona isla xabashigan lagu magacaabo dhuswayqatayn ee soo bixi doona aakhiru zamaanka oo kacbada dumin doona, dibaddana u soo saari doona keedka kacbada. waxaa jira xadiis ay warisay caaisha radia allahu canha oo uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kacbada waxaa ku duuli doona ciidan ayaa ku duuli doona, kadib ilaahi subxaana wa tacaala dhulka ayuu la goyn doonaa. riwaayad kale waxay leedahay ciidan ayaa ku duuli doona kacbada, intaysan gaarin ayuu ilaahi subxaana wa tacaala midka ugu horreeyo iyo midka ugu dambeeyaba dhulka la goyn doonaa. markaas kadib ayuu ilaahi subxaana wa tacaala soo saari doonaa ciidankaasi. taasi marka waxay tusaysaa in ciidankaasi markuu ilaahi subxaana wa tacaala soo saaro ay duulaankooda ka dhanka ah kacbada sii wadi doonaan ilaa ugu dambayn ay ku guulaystaan inay dumiyaan kacbada.